bulshada Soomaaliland iyo bulshada Islaamka caalamka Islaam dhamaan wada salaamay bacda salaam waxaynu wada ognahay oo aynu ka wada dhagsanay inaynu u baahnaa isbedelka hadaba yaa keenaya ama yaa saameynaya ama yaa koskareynaya taas waa wax iisi ama la ogaan karo ama loo wada jeedo in wax dal kasta ama meel kasta oo la joogo ay dhalinyaradu wax bedesho dalkan aynu maanta wada joogno sidoo ka wada dhagsanay ama inuu wada arkayno kursi walba ama kursi kasta oo madaxeed waxa fadhiya ninka weyn oo hadii aad saxiix uga baahato kaaga xidhayo muraayadihii aan ku saxiix lahaa ama aan adeer waraaqda ku saxiix lahaa iga dhiman adeer weyn ninka weyn waxa weeyaan inaga dalkiisu kacana ninkan weyn maanta age maraya dadku waxay yiraahdaan dhalinyarada maxay taariibisa mooyaan waa tagaysaa waa ka cararsa dalkan waayo waxa aragtaa cawaaqibka yaal waa carar weydii waa in ay dadkan waaweynay ama dadkan dawladda u shaqeeya ama madaxda dawladdu ay la timaada sifo isbedel sifahaas yaanu ninka madaxda ay ka fikireen macni saa doorasho labaad ama mar labaad buu doortaa waa in uu ka fakaraa sideeba dadkan macni dalkan aadan uga yeelataa oo aad bulshadan iyo mudan iyo dadkaaga baa ku qabataa dadkii markaa ninka isla laftigiisa isagii doonayaan waxaan hadalkay ku soo guniyo gunaanad uga dhigayaa nin kastoo madaxa xil wax ka saaran yahay dalkiisa iyo dadkiisa in uu aan ku fikirin sidee baad kursigan u soo haystaa laakiin inuu ku fikiraa sidee baad ummadan wax u qabataa aad ku soo dooratay aad meesha mutay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim haddii aan aniga laftiga ka hadlo qodobkaa uu saaxiibkii ka dhawaajiyay walba waxa weeye wadankii wuxuu u baahan yahay isbedelada wadanka u baahan yahay inuu ogsoonahay waxa weeye waxbaynu isku bedelinaa waxaynu isu bedelinaa okay waxaanu isku bedelinaa waxa weeye waxyaalaha cawaaqibta badan wadankeena ka jirta taas oo had iyo jeer laba ay horkac ama horseed u yihiin madaxda sare wadanka maxaa keenay haddaba inay madaxdeena inaga xumaato waxaa keenay madaxdeena waxa hal jawaab kale leeyahay waxa weeye madaxdii wadanku danka ma leh wadankii isaga ahaa waxaa loo baahan yahay anigu haddeer ku adduucan maayo odayaasha waaweyn inay walba shaqooyinkooda iyo xilalkooda laakiin waxaan leeyahay dhalinyaradii waa taxriibisa waa isdilayaan buuq bay sameynayaan waa arbushayaan mushkilad walba oo ku timaadana haddii la eego dhalinyaraa ka koowa sababtoo ah dee dal lagama leh waa u bixi waddanka laga odhanaya hadda kahor waxaa dhacday nin odayo wada sheekaysanay inuu yidhi waxaad tihiin adeer ubaxii beritoole maxaan u noqon waaya ubaxa maanta anu lahay ubaxii beritoole 80 jir baa tahay ma aha in aad retirement baa jira waa inaad shaqadaadii markaad dhamaysatid agekii aad dee waad daasho qof weyn baa tahay aad fadhiisataa oo nasataa iyadoo aan mushaharkaagii iyo waxaagii lagaa boobin waxay aaminsan yahay ninkan weyni haddaad inay yaroo dhalinyara shaqasiiyaba in shaqadiisa laga boobin iminkana waxaan leeyahay anigoo odayaasha iyo wadanka madaxdiisa buu soo jeedinaya halkan talo iyo tusaalaba war adeeryaalo in ma adeeryaalo wadanku wuxuu u baahan yahay isbedelka loo baahan yahay waxay ila tahay raayigayga gaaban ee shakhsiga in ay dhalinyaradu iyo cuqaasha iyo salaadiinta muxuba haddii gacmaha la iswada qabso keeni karo taas oo ay had iyo jeeraale horseed u noqonayso dhalinyaradu isbedelada wanaagga ay doonayaan iminkana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh